maalmihii u dambeeyay hadda gobol waxaa soo laalaabanayay dhaqdhaqaaqyo tiro badan oo u suurad eg wixii magaaladan horay loogu dumiyey waa diidnay haddii aan nahay maamul shacabkuna horay u diideen haddana waa nala diideen waxaan rabnaa inaan maxay yihiin waxaa weeye xoola in la kala dhaco iyo dhulal in la isku qabsado iyo aanooyin iyo wax la xiriira dagaallo qabiil in maxay tahay suuraddaas waa taqaanaa soo maa waxa suuradaas leh suuradaas waxaa waa garanaysaa suuradaas waxaa lahaa wixii magaaladan dib loogu celin jiray weyo dadka walaalaha waxaan jirin qofba intuu mara bitiyo waa wara yidhaahdo inuu ummadda ku dhibaateeyo lacaga jaad dhulal baabuurka dhacay xoolo la kala qaadayo dagaallo qabiil aana qabiil waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalaha ku sugan hoolka war walaalayaal nabadda macaankeeda waa dhadhaminay kharaarka colaadana waa dhadhaminay diyaar ma u nahay waxyaalaha suurada xun ee wadooyinkii ilaahay naga soo gudbiyey nagu geynaya sida ka muuqata raadkooda inaan annagoo hal fara hor istaagno diyaar ma u nahay reer gaalkacyo reer gobolka mudug hadday saroodaanka codka waa yar cod baa rabaa diyaar ma u nahay inaan hor istaagno annagoo isku duuban cod dheer baa rabaa waa dabcan waa idin xutaaran aad ba umahadsantihiin sidoo kale waxaa jira maxaa ka mid ahaa waxyaalaha noocaas siyaasadaha bannaanka la iska diidaa ka mid ahaa intay joogeen madaxweyne axmed qoorqoor iyo madaxweyne saciid cabdullaahi deni waxaan kaga mahad celinaynaa ramaanaha markhaati ka ahaano gobolkan waxay ka ilaaliyeen waxyaalaha bannaanka la iska haya inay soo galaan degmada gaalkacyo maadaama ay su-aal dheeraad isku dhigan tahay annagana runtii fuliyaal baan ka ahayna waa qaadanay heer gobol iyo heer degmo iyo laama amni intaba madaxweyneyaal sharafta waxaan rabaa waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaan rabaa habeen dhaweyta mara waxaan dhahda qabteen siyaasadihii bannaanka aan ku horeynay oo magaalada soo dhex galay arrintaas waxaan rabaa annaga labadeena madaxna oo ka wada hadalnay maamul ahaana uga wada hadal arrinta noocaasi magaalada gaalkacyo ma qaado madaxweyneyaasheena sharafta leh sidii hore ugu xakamaysan arrintan u xakamaysan aragno aysan bannaanka soo dhaafay sababtoo ah waa hal guri oo isku mida meeshaan dadkuna waa wada dhashay arrintaas aad iyo aad baa uga dardaaranayaa dareenkeeday naga rabtaa meel kale ayaana fiirin bay rabtaa gaalkacyo yaa iska leh xasan sheekh maxamuudna ma leh cabdiraxmaan sheekh xasanna ma leh faarax kalena ma leh reer gaalkacyo reer gobolka mudug baa iska leh inaan wada ilaashano annagaa martinooda kugu yahay